qabateen baan ku soo rogayaa waa kala qaybinaya markaasaan haddana maamulkoodii sii faragelinayaa oo leeyahay maamul baan u dhisaya kaniini baan u qorayaa xaggaan u qorayaa waxaas faduul iyo dabdarro waaye marka waxaan leenahay madaxweynaha Soomaaliyana mar allaaliya markii meel la isugu yimaado dee war wuxuu ka kacaa runtii aan dadka Soomaaliyeed u qalmine dad waxa hadalka uu yiri oo galmudug ka yirina waa inuu cudur daar ka muujiyaa oo kaniini maan u qoray iyo xaggaan u qoray kaniini uma qorin cudur ayuu galmudug u qoray cudurku u qoray waxa ay cudurka kala qaybinta cudurka kala geynta cudurka isku dirka cudurka cunaqabateynta cudurka nacaybka iyo heydka ayuu ka dhaxabuuray dadka reer galmudug marka nin cudur sido virus sida way ma ahan nin daawo sida ma ahayn haduu daawo sido intuu tago ayuu problemkeeda xalin lahaa intuu tago ayuu dadku wacay inta joojiyo isku geyn lahaa intuu tago ayuu dhaqaalaheeda u fasaxi lahaa qofka daawada wada kaasa la yiraahdo laakiin cudur buu waday cudur buuna galmudug la dhex taagan yahay waxaan leenahay dadka reer galmudug ha isku tashadaan maamulka dawladda dhaxana wax ka quseeya arrimaha galmudug ma jirto